Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan isla eegi doonaa 5 faa'iido laga helo garhka. Haddaba garhka faa'iidooyinku aad ayuu badan yihiin, lama soo koobi karo, laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa 5 ka mid ah. Faa'iidada koowaad ayaa waxay ka dhigaysaa diirimaad xilliga qoobaha. Garhka ayaa runtii muhiim u ahaa badbaadista kumanaan sano ka hor. Mid ka mid ah sababaha ayaa waxay ahayd inay ragga kulayliso, laakiin weli garhka wejigaagu waxa uu ka sii kullaan doonaa xilliga qoobaha. Timaha wejiga ayaa ka hortaga maqaarkaagu inuu jajabo ama uu isku bedelo casaan. Daraasad lagu sameeyay Shiinaha 2012 ayaa muujinaysay in dibnaha dusha sare ee raggu ay ka diiran yihiin dhabankooda, taas oo muujinaysa in timaha wejiga ay ka ilaaliyaan heerkulka qabow. Marka uu heerkulku aad u qabow yahay, garhku waxa uu dhibaato ku keeni karaa barafka, laakiin taasi waxay u muuqataa inay tahay arrin u gooni ah baarayaasha. Faa'iidada labaad ayaa waxay ka hortagaan fallaaraha qoraxda. Timaha wejiga ayaa ilaaliya maqaarkaaga fallaaraha UV ee waxyeelada leh oo sababi kara kansarka maqaarka. Daraasad lagu daabacay joornaalka Radiation Protection Chemistry ayaa soo bandhigay in 50% ilaa 95% uu ka hortago fallaaraha UV. Garhka ayaa bixiya ka hortagga fallaaraha UVB marka loo eego fallaaraha UVA. Fallaaraha UVB ayaa dib u hagaajiya maqaarka, waxaanay sababaan inaad gubato, taas oo horseeda kansarka loo yaqaano melanoma. Haddaba ka ilaalinta jidhkaaga fallaaraha UV waxay ku xidhan tahay dhererka iyo xagasha garhkaaga. Garhka dheer ayaa ku siin doona ilaalin dheeraad ah. Faa'iidada saddexaad ayaa haweenku waxay jecel yihiin garhka sababtoo ah waxay iftiimiyaan indhahaaga, waxa aanay daboolaan daankaaga. Haweenku ay ka helaan ragga garh leh, sidoo kale way ka caafimaad badan yihiin kuwa garhka xira ama aan lahayn. Inaad garh yeelataa waxay kor u qaadaysaa muuqaalka iyo cabbirka daankaaga, taas oo ka dhigaysa inaad u ekaato qof muuqaal fiican. Sidaa darteed ayay u soo jiidasho badan tahay haweenka. Sida lagu sheegay daraasad lagu soo bandhigay jaamacadda Glasgow ayaa waxay sheegtay haweenku waxay u arkaan ragga leh garh buuxa inay yihiin rag aad iyo aad u fiican oo lamaane ah muddo dheer. Faa'iidada afraad ayaa waxay ku muujinaysaa inaad anshax leedahay. Haddaba la bixidda iyo haynta garhku waxa ay qaadanaysaa waqti, laakiin waxay horumarinaysaa edebtaada. Waxay u baahan tahay inaad noqotid mid firfircoon si aad uga soo baxdo timahaaga. Waxa ay qaadanaysaa waqti in la helo garh qurxoon oo si fiican looga shaqeeyay, laakiin waxaad ka dhaxli doontaa samir iyo edeb. Faa'iidada shanaad ayaa iyaduna waxa uu ka difaacaa xasaasiyadaha. Garhku waxa uu shaandheeyaa xasaasiyadaha iyo bakteeriyada kale ee hawada, isagoo ka kaxaynaya afkaaga si loo hagaajiyo caafimaadka. Ma qaadi doontid hergeb badan ama weeraro xasaasiyadeed maadaama aad leedahay garh ka difaaca.